Sani Cabdulle ayaa xilka laga qaadayaa sidoo kalena degmadii uu isagu ka soo jeeday sidoo kalena gudoomiyihii xilka laga qaaday waxa lagu bedelay nin sarkaal ah 15 May ka hor dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay qorsheynaysaa inay guud ahaanba la wareegto hubka yaala degmada Gubadley ee gobolka Banaadir ee dowlad goboleedkan ama gobolkan Banaadir sidoo kale degmada Daynile isla hubka yaala isagana waa la wareegi doonaa sida aynu xogta ku helino wararkii ugu dambeeyay ee labadan degmo ayaan halkan idinku soo gudbi doonaa gudoomiyaasha la magacaabay ee la sheegay inay yihiin saraakiil ciidan oo ka tirsan kuwa militariga ah ee Soomaaliya dowladdu maxay qoonsatay oo ay ku aragtay labadan gudoomiye ee Daynile iyo sidoo kale Gubadley haddaba laba degmo oo istiraatiiji ah dadkoodana ay yihiin dad in badan oo kamid ah dawladdu si toos ah uga hor yimid ayaan xogtooda halkan ku eegi doonaa saaxiibayaal haddii aad markaa kugu horeysay aad soo booqato nagu soo bir saaxiibada la sii wadaag qaybta hoose ee faaladana aragtidina nagula wadaaga mar kale soo dhawaada saaxiibayaal aynu ku bilownaa waxa saacadihii la soo dhaafay jiray xogo kala duwan iyo warar ku aadan in degmada Gubadley ee gobolka Banaadir ay ka dhaceen waxyaabo kala duwan oo ay jiraan xogo kala duwan oo xilalka looga qaadayo gudoomiyaasha qaar ee degmooyinka halka wararka qaarna ay sheegayaan in durba koonfur galbeed iyo deegaano kale ay ka bilowdeen dhaqdhaqaaq lagu doonayo in ciidamo kuwa mucaaradka ah gudaha lagu soo geliyo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaa jira in maalmihii la soo dhaafay ay xogo kala duwan ay soo tarayeen kaasi oo ku aadan in General Sani Cabdulle Gaab oo kamid ah saraakiisha ciidanka militariga Soomaaliya oo ku sugan gobolka Shabeellaha Dhexe laga qaadi doono hubka sidoo kale xilka qaadis lagu sameyn doono laakiin wararkaasi oo idil hadda waxay u muuqdaan kuwa soo xoogeysanaya xilli uu isagu beeniyay oo si gaar ah bartiisa gaarka ee Facebook uu ugu qoray in arrimahaasi oo dhan aysan jirin laakiin waxa ay muuqataa hadda in xaaladdu ay isbedeshay marka ka sii dambeysana la filayo in dawladdu ay qorshayaal hubka dhigis kugu sameynayso General Sani Cabdulle iyo saraakiishii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa looga cabsi qabo inay ku biiraan badbaado qaran 2 ama dhinaca mucaaradka ay aadaan waxaa la warinayaa in degmada Gubadley gudoomiyaheedii xilka laga qaaday iyo sidoo kale Daynile labadan degmo waxaa loo arkaa laba degmo oo caqabad ku ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud nidaamkiisa muddo kororsiga halka sano ah oo isagu uu qorsheeyay tan iyo markii dawladnimada Soomaaliya gaar ahaan 2022 uu xilka la wareegay sidoo kale waxaa la warinayaa in General Sani Cabdulle xilka qaadis laga yaabo in lagu sameeyo saacadaha soo aadan ama maalmaha soo aadan sida aynu xogtu ku helino sidoo kale waxaan helaynaa in hubka yaala degmooyinka Gubadley iyo Daynile si rasmi ah loola wareegi doono maadaama ay labadan degmo yihiin labada degmo ee hubka ugu badan uu yaalo lagana abaabuli karo badbaado qaran 2 sida madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu kaga cabsi qabo in mucaaradku markaasi ay noqoto ama ay u noqdaan labadan degmo laba degmo oo istiraatiiji ah sidoo kalena ay ku biraan marka laga soo tago arrimahaasi oo idil waxaa jira dhaqdhaqaaqyo amni iyo kuwa siyaasadeed oo gudaha caasimadda ka socda mucaaradka Soomaaliya shalay ilaa iyo saacadii la soo dhaafay ilaa iyo saacadan aan la hadlayno waxay wadaan kulamo gaargaar ah oo ay la leeyihiin ismada dhaqanka ee beelaha Soomaaliyeed ee waliba ku sugan gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho garaadada ka soo jeeda SSC waqooyi bari Soomaaliya dhinaca Somaliland kuwa Puntland Jubbaland Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo Galmudug ayay kulamo la qaadanayaan dhammaantoodna waxaa looga hadlayaa arrimaha doorashooyinka qof iyo cod ee muranka badan uu ka taagan yahay mucaaradkana si weyn ay u dhaliilsan yihiin nidaamka uu wax u wado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale waxaa jira in dhaqaaqyadu ay ku soo biireen xubnaha saraakiisha ah ee militariga Soomaaliya ee qaarkood saluugsan hab maamulka hay'adaha ammaanka iyo sidoo kale guud ahaanba hay'adaha kale ee dawladda maadaama madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud horay saraakiil uu isagu garab markaasi u ahaa oo xilligii mucaaradka ay ku ahaayeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo hadda uu cabsida ugu weyn uu ka qabo ay tahay inay iyagii ku bilaabaan oo mucaaradku ay garab siiyaan taasi oo keentay in hadda xaaladdu ay isbedesho xilli kastana laga cabsi qabo in markaasi ay abaabulaan ciidan kaga yimaada gobolada dalka waxa amar uu ka soo baxay taliska ciidanka militariga Soomaaliya kaasi oo ah in gaadiid aan laga warqabin iyo ciidan aan laga warqabin oo waliba aan fasaxaysan ay gudaha caasimadda la soo gali karin hub iyo gaadiid intaba taasi oo ka dhigan in hadda xalnibaado kala duwan lagu soo rogayo xubnaha mucaaradka ciidamada taageersan ee ka imaanaya maamul goboleedyada dalka haba ugu badnaatee Hirshabeelle iyo sidoo kale Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo in badan oo kamid ah ay mucaaradku ka soo wada jeedaan Galmudug isla sidaas oo kale xubnaha ka soo jeeda iyagana gudaha Muqdisho ayay ka wadaan abaabulo kala duwan oo militariga Soomaaliya ah ama ciidan
iyo dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo aad u xoogan iyadoo la filayo in maalmaha soo aadan galmudug ay ka dhacaan doorashooyin waxa ay dowladdu ugu yeertay qof iyo cod oo ay dood adag ka taagan tahay oo mucaaradka iyo sidoo kale siyaasiyiinta kuwa xilka haya ay isku hayaan. haddaba aynu eegno dhinaca koonfur galbeed ee Soomaaliya. Koonfur galbeed Soomaaliya saaka waa ay ka duwan tahay xaaladdu sidii hore. Ammaanka guud ee magaaladaas ayaa si weyn loo adkeeyay, waxaana la arkayaa ciidamo aad u tiro badan iyo gaadiid dagaal oo isaga kala gooshaya wadooyinka waaweyn ee gudaha magaaladaasi Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee koonfur galbeed ee Soomaaliya, halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidan ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya kadib markii banaanka looga saaray dhammaan ciidamadii lagu magacaabayay badbaadada koonfur galbeed oo isugu jiray ciidamo maleeshiyaad ah iyo kuwa ka goostay koonfur galbeedii hore ee uu hogaaminayay madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen. saraakiisha ayaa ciidamada waxa ay la qaadanayaan kulamo degdeg ah oo dhammaanba saraakiishu iyo ciidamadu ay wada yeelanayaan si gaar ah saraakiisha ugu sarreysa ee ammaanka in ciidamada ku jira heeganka buuxa la sii adkeeyo oo ay ammaanka guud sugaan maadaama la qorsheeyay in la qabto doorashooyin golayaasha deegaanka iyo kuwa golaha wakiilada ee dowlad goboleedkaasi oo ah waliba doorashooyin isku sidkan. sidoo kale waxaa la filayaa in deegaanada qaar ee koonfur galbeed inay ka dhacaan doorashooyin muran ay ka taagan tahay oo ay ka taagan yihiin naraade ee koonfur galbeed ee waliba qof iyo cod. wasiirka amniga koonfur galbeed Maxamed Xuseen John ayaa saraakiisha faray in laga shaqeeyo nabadgelyada shacabka koonfur galbeed iyo guud ahaanba deegaanada maamulkaasi si gaar ah magaalada Baydhabo maadaama Baydhabo ay tahay magaalooyinka ugu waaweyn ee xilligan martigelinaya doorashooyinka qof iyo cod ee waliba dhibaatooyinka xoogan ee laga cabsi qabo inay ka dhacaan gudaha deegaanadaasi qaar iyadoo ay jirto waliba siyaasiyiin si weyn uga soo horjeeda habmaamulka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. haddaba saaxiibayaal dhinaca kale haddii aynu eegno ciidamo hubeysan ayaa lagu soo waramayaa in saldhigga degmada Dhahar ay kala baxeen Caaqil Faarax Muuse gelinkii hore maanta iyadoo lagu soo waramayo in caaqilka ilaa iyo hadda aanan la ogeyn sababta rasmiga ah ee loola baxay. waxaa la sheegay in dowladdu ay ilaa iyo hadda xarigiisa ka hadlin. sidoo kale Caaqil Faarax waxa uu ka mid yahay nabadoonnada ee aadka u taageersanaa dhismihii dowlad goboleedka waqooyi bari Soomaaliya. intaasi loo haysto iyo in kale lama sheegi karo, laakiin waxaa la warinayaa in xabsiga loo taxaabay oo xilligan ay gacanta ku hayaan ciidamada maamulkaasi Puntland, lamana oga sababta rasmiga ah ee ka dambaysa. sidoo kale warar kala duwan ayaa isa soo taraya oo ku aadan xaaladda guud ee siyaasadeed ee dalka iyadoo waliba la warinayo in kulamo ay ka socdaan gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho oo dhammaanba looga hadlayo xaaladda guud ee doorashooyinka qof iyo cod ee dowladda federaalka Soomaaliya ay rabto in guud ahaanba ay ku qabato maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale maamulkan gobolka Banaadir. saaxiibayaal intaas ayaan jeclaan ku hakiyo guud ahaanba wararkaygaas. haddii aad ila dhamaadka ila soo gaartayna waxaan ka codsanayaa inaad igu soo biirto saaxiibada la sii wadaagto qaybta hoose ee faaladana aragtidiina nagula wadaagtaan, sidoo kalena saaxiibada la sii wadaagtaan muuqaalkan janaalkeena subscribe dhaha naguna soo biira. sidoo kale saaxiibayaal haddii muuqaaladeena aad la socotayna oo aad nala joogtayna waad ku madsantahay 1001 jeer. haddii aad nagu cusubtayna nagu soo biir si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida idinka oo kale.